Okay guys, recordka waa bilaabeynaa marka cawad waxaan qaadanaynaa laba wax horta waa qaadanaynaa midda kood waxa waaye waxyaalaha horta ka qor maxaa la dhahaa TP maxaa la dhahaa ama target profit maxaa la dhahaa entry maxaa la dhahaa iyo stop loss maxaa la dhahaa saddexdaas iyo waxa kaloo qaadan doonaa iyo sida loo trade garay macnaha sida inta account loo furto account fee-ga loo furto kadibna loogu trade garay okay intaada marka account fee-ga furan waxa u baahan tahay waxyaalo badan u baahan tahay waxyaalaha u baahan tahay waxa kamid ah horta inaad broker taqaano hore waa soo dhiganay waxaa kaloo u baahan tahay inaad taqaano biib maxaa waaye waa soo dhiganay waxaa kaloo u baahan tahay waxa la dhaho sidoo kale waxaa u baahan tahay lot size maxaa la dhahaa waa soo dhiganay sidoo kale waxyaalaha kale u baahan tahay labadii website ama wax ku xisaabin in ayadana u baahan tahay oo waa soo dhiganay okay saddexdaas saddexdan qodob kole waa soo baranay oo waa xasuustaa marka cawada waxa raaca marka cawada waxa soo raaci doona marka saddexdan kala soo raaci doonta oo aan micnayna marka saddexdan micna u yeelno okay tan koowaad haddii aan micnayno micnaheedu waxa waaye tan koowaad waxa waaye target profit sidaa ka dareemaysa waxa waaye target profitka ereyga target profit sidaa ka dareemaysa ama luuq ahaan sidaa u dareemaysa waxa waaye meesha u faa'iidada ku egtahay ama targetka faa'iidada ka leedahay okay kana maxaa waaye entry sidan ereygu yahay oo kale maxaa waaye waa meesha laga geli lahaa suuqa waa entryga okay stop loss maxaa waaye meesha khasaaraha ku ogyahay okay saddexdan aan falaqeyno markaas okay saddexdan haddaan falaqeyno okay saddexdan haddaan falaqeyno marka aan falaqeyno saddexdan kan entry waxaa la dhahaa meesha suuqa laga geli lahaa horta okay stop loss waxa waaye marka stop loss u micno badan stop loss waxa khasaaraha iga jooji waaye for example maalin waxa dhan suuq marka la gelaayo akoonkaaga tusaalan $500 kusoo shubatay $500 marka kusoo shubatay akoonkaaga $500 suuqa la geli maysa haaf ka mid ah waxbaa la gelaysa okay waxaa la $10 suuqa la gelaa dhah $10 suuqa la gelaa si aad $10 marka suuqa la gelaysid marka yaa kuu sheegaa marka suuqa inuu $10 gaaray waxa isticmaali doontaa ereygan oo ah stop loss macnaheedu waxa waaye war suuqan $10 suuqa la soo galay suuq maalinka $10 gaaro khasaaraha halkaas ku jooji macnaha $11 xataa kama dhigi karo ama $10 iyo bar xataa kama dhigi karo macnaheedu waxa waaye maalinka suuqa inuu $10 suuqa la soo galay maalinka suuqa $10 gaaro khasaaraha iga jooji okay wani anu faa'iido waxa rabaa ah tan ereygan haddaan micnayna waxa waaye wani faa'iido waxa rabaa aniga ah $100 rabaa ama faa'iido ah rabaa maalinka profitkayga ama faa'iidada ay gaarto $100 suuqa iga jooji macnaa suuqa ku jooji macnaa boqolkiiba dollar isii okay labadan marka target profit iyo stop loss sidaas la dhahaa marka waxaa kuu soo har entry kuu soo hartay entryna waxa waaye maadaama aan dhahnay ama erey aan kasoo sheekinay uu ahaa haddii aan waxyaalahan tirtiro maadaama erey aan kasoo sheekeynayna hee uu ahaa lacag baa gadanaa hee lacagta markay joogto meel hoose waa iska iibinaa lacagta markay tagto meel sare iska iibinaa oo seelaa dhahnaa markay meel hoose joogtona buy baa dhahnaa okay meesha aan ka gadan lahaa lacagta ama lacagta aan ka gadan lahaa waxaa la dhahaa marka entry aa la dhahaa okay sidee marka u taala saddexdooda sidee u yaala okay mid kasta hortiisa dhankaan marka laga soo tago dhankaan aan soo aadno dhankaan haddaan soo aadno nambaraha ka qoraada aragta fiirsaya nambarkan buluuga maxaa waaye waa 1.108.49 soo ma 47.9 waaye okay nambarkan kale haddaan fiirso madowga maxaa waaye 106.59 nambarka kale guudka haddaad tahay waxaa waaye 1.105.816 okay intaasoo nambar meesha ku qoran guys okay intaa nambar aa qaadan doontaa marka okay si u qaadanaysaa waa u tegi doonaa markay brokerka aan tegayno akoonka kaa tegayno aa arkaynaa marka intaan lacag meesha intaan nambarkan iyo waxa qaadan doontaa nambarkan iyo waxa qaadan doontaa nambarkan saddexdaa nambar aa qaadan doontaa okay suuqan nambarkan maxaa waaye waa halka suuqa geli lahayd waaye nambarka suuqa geli lahayd okay nambarkan kale maxaa waaye waa halka suuqa uga bixi lahayd waaye macnaa $10 khasaaraha dhigay intuu meesha ku og yahay waa halkan maxaa waaye $100 ama $50 ay faa'iidi lahayd meesha ku og yahay waa macnaa suuqu intuu ka bilaaba marka soo maha inta haddaan afarta bedelo meesha haddii laga bilaabo suuq kor hadduu aado wuxuu u socdaa dhanka $100 u socdaa dhanka faa'iidada u socdaa suusa ugu socda marka nambarkaas 1.108.49 markuu taabto isxiraa saas automatic isxiraya okay sidoo kale meeshaan hadduu hoos ka aado maxaa u socotaa dhanka khasaaraha u socotaa $10 khasaaraysa markii lambarkan uu tago 1.05 816 markuu istaago markaas markuu soo istaagana maxaa dhacaya waxaa dhacaysa waa isxiraa akoonkaas $10 khasaara kuu soo saaraya akoonka automatic waxaa laga jaraya lacag $10 laga jaraa $10 minus lagaa dhaha ama $10 minus lagaa dhaha adii wixii akoon lacagta ku gashay sidoo kale inta maxaa balaas la dhahaya balaas $100 la dhaha haddii markaas
marka saddexdaas nambar aa qaadan doonta okay saddexdaasna waa laba lambar ka qaadan doonta marka okay insha Allah waa falaqeynaa marka mar haddii horta midaa jirto oo ah mar haddii aad lacagtan meesha aad ay taagan tahay hamar bay ka dhexayso ama ka iibsanayso uma baahna nambarka inaad qaadato nambarka meesha ku qoran uma baahna inaad qaadato nambarka meesha ku qoran 1.106.59 sagaashan markaas oo ku qoran tahay uma baahna inaad qaadato haddii lacagta meesha ay taagan tahay aabbaay ka dhaxayso meesha ay hadda ay tahay aabbaay ka dhaxayso uma baahna inaad qaadatid okay goorma u baahanta inaad qaadatid waxyaalaha aan kasoo sheekeynay waxay ahaayeen hadda casharada soo daawateen buy stop sell stop iyo sell limit iyo buy limit aad kasoo qaado kasoo sheekeen maxaa buy stop micnaheeda yaa xasuusta ama ii sheegi kara ma xasuusta okay buy stop micnaheeda waxa ay suuqan way sii socdaa hore ii sii raacsi waa for example suuq intuu marayo okay intuu mar markaanu maraa suuq halkaanu marayo okay waxaa dhahda halkaas iga geliya dhahda halka boontigaas ku maraa suuqa iga geliya dhah ana suuqaas aan ka galo micnaheed maxaa waa hore usii raaca waay soo ma hore usii raaca haddaa hore usii raacaysid nambarkaas ku aadan waa nambarkaad fiiriya 1.07 aa ku aadan 107 aa ku aadan soo ma 600 aa ku aadan nambarkaas wuxuu ku noqonaya intri markaas intri baa u baahan tahay sababtoo ah suuqaad wuxuu maraya nambarkaanu maraya 107 uu maraya ma ogtahay 600 aa laga sarreeyaa markaasoo kale suuq meesha ma gaarin maxaa samaynaysaa insha Allah waa u teginaa sidaan u gelinin laakiin marna waa u baahan tahay nambarka intriga waa qaadan doontaa marna uma baahnid markay u baahan tahay waxa u baahan tahay markaa isticmaalayso buy stop waxa u baahan tahay qoro waxa u baahan tahay markaa isticmaalayso waxa u baahan tahay markaa isticmaalayso buy stop iyo sell stop iyo buy limit iyo sell limit afartaa markaa isticmaalayso maxaa samaynaysaa waa u baahan tahay inaad isticmaashid sababtoo ah Ibrahim Jooji waxa qoraysa okay afartan waa u baahan tahay inaad isticmaasho sidee labadan macnaheed maxaa waa lacag suuqa meesha hadda ay maraa ma gaarin macnaha waa suuq siiso intuu marooya xaggaas ma kuta geli waa macnaheed hore isii qaad waa nambarka maxaa waa ma gaarin suuqa hadduusan gaarin waa u baahan tahay afartan waxaa qaadan doontaa afartan markaa isticmaalaysa waxaa qaadan doontaa nambarka intriga waa qaadan doontaa hadda nambarkan oo kale waa qaadan doontaa 1.06 waa qaadan doontaa 1.08 waa qaadan doontaa 1.05 na waa qaadan doontaa laakiin marka hal mar aabbahay dhahaysa lacagta haddayba taagantaha nambarka uma baahna marka inaad qaadato marka taasna inay caddahay markaas okay hal mar waxaad isa tegi doonaa marka sida loo furto brokerka marka okay hadda wax sameynaa lacagaa soo xisaabsanayna hal mar lacagaa soo xisaabsanaynaa maanta cadow suuq waa xiran yahay maadaama suuqa hadda xasuustaan suuq waxaa idiin sheegay inuu furan yahay isbuucii shanta maalin inuu furan yahay kacwada suuq waa xiran yahay marka waxaan ku xisaabta waxaan aan ku baraatikeeno ma hayno laakiin waa intusaa insha Allah marka waxaan sameynaynaa wixii xisaabinayna soo maa biibka kuleetarkaa soo baxsanayna linkiyada ahood waa idiin soo diray hadda waxaan lacagtan kale aan galno okay lacagtana waxaan rabnaa lacagtana wax dhan waa gelaynaa niyo okay lacagtana wax dhan waa gelaynaa okay waxaan lacagta inta ka gelaynaa meeshaana ka gelaynaa for example meeshaana ka gelaynaa meeshaana waa oga for example aan dhahaynaa meeshaan waa ka gelaynaa kasoo qaad meeshaan ka gelaynaa lacagta madow waa ka gelaynaa gaduudka hadday soo gaarto waa ka baxaynaa okay gaduudkiyaa soo qabanaa gaduudka hadday soo gaarto macnaheed maxaa waa ka baxaynaa waa danger waay cagaarkaas hadday gaartana waa faa'iidadii macnaha cagaarka dhiganaynaa waa ka baxaynaa maxaa xisaabtan jirnay biiba xisaabin jirta sooma ereyga biib bahashan soo qabsan doonaa automatic bahashan waan qaadan doonaa markaa trade review barayna qaadan doonaa intaa saaraynaa ilaa dhenjarka meeqa biiba udhexaysa waa 74 biiba udhexaysa okay ilaa iyo qaybta sarena meeqa udhexaysa 490 biiba udhexaysa okay hadda maxaa wadanaa laba lambaraa wadanaa maxaa wadanaa faa'iidadu ah 490 biib iyo khasaaraha ah 74 biib 74 biib waxaa ku dhufan doonaa lossoskiina ku dhufan doonaa kadib maxaa noo soo baxaya lacagtaa khasaarayno ah waxaan khasaaro dhigaynaa dhahaynaa $30 khasaaro dhigaynaa dhahaynaa inaan khasaaro gaarsiinaa $30 faa'iidadana
ayadaa soo baxaysa marka faa'iidada losseska automatic wuu kuu soo baxa marka faa'iidada loss muxuu samaynayaa maalintii $30 aa faa'iidaysid $30 khasaaraysid cagsigeeda wax faa'iidaysaa ku dhahayaa $90 marka lotka hal mar bes aa bedelaysaa ma baahnid inaad bedesha marka intana keena marka okay lacagta maxaa USD GB waa dhahay lacag inta ku jiraan marka website-kan waa haysaan inta wax ka dhex raadinaysaa USD GB waa inta ka dhex raadinay waa tana waxaan dhahnay inta wax gelin doonto marka $7 khasaaraha gelin doonta khasaaraha xisaabinta marka koowaad maxaa madaxa ku haysta waxaan madaxa ku haysataa in $30 khasaarayso soo ma nambarkan ba bedelaysa marka ilaa $30 kuu soo baxayso 1.10 hadaa dhaho kale $40 soo baxayso 1.0908 hadaa dhaho kale $38 soo baxayso 06 hadaa dhaho $28 07 $33 macquul waa ama 065 hadaa dhahona $30 waa kaasa losses maxaa wataa losses waxaa wataa la dhaho losses waxaa wataa oo one losses kana wato ah 0.065 wax isoo saaraya $30 khasaare isoo saaraya isla asaga wax ku dhufan doona dhanka faa'iidada ku dhufan doona oo ah meeshan biibka muxuu inta bedeli doonaa bes waxaa ku bedelaya 490 biib ku bedelaa meeqa isoo baxay $200 isoo baxayso micnaheedu maxaa waaye waxaan haddii la faa'iida waxaan faa'iidaa $200 faa'iida haddii la khasaarayana wax khasaara $30 khasaara arkaysaa farqiga u dhexeeya farqiga waa sidaas marka $200 faa'iida haddii la khasaaraya $30 khasaara intan anoo wata marka haddii meeshana u laabana marka bahashan hadda ku laabano numberiska soo qaadanayna marka okay numberiska soo qaadanayna nambarkana waxa dhana suuqa ka gal nambarkana suuqa ka gelina dhahna waxa dhahnaa 145 145 844 waa nambarku khasaarayna ku ogyahay macnaha 30 dollar nambarkaas ma ku soo gaar lacagta hoos soo aado maalinka nambarkan taabato automatic muxuu sameynaya automatic $30 kuu soo baxaya macnaha $30 akoonka laga jara bis khasaaraha lacagtan laga saara waa joojinaysa okay dhanka kale maalinkii ay gaarto marka lambarkaas ah 151.539 ay gaarto $200 akoonka lagugu daraa oo balaasa lagugu dhahaa then marka suuqan waa lagaa xiraa haddii lacag sii socota taa faa'iido kale sii samayso $500 $400 $1,000 sii gaarta xitaa adu ma lihid macnaha $200 uga harta okay taasna waa gooni marka waxaa tegi doonaa marka anoo intaas naqaano wax tegin ama horta inta wax su'aal ayaa ka qaban intaan u gudbin marka intaan u gudbin inaan inta sida akoonka loo furto intaan u gudbin hey guys ده انا سؤال قبل صح ايه بس فريد بقى باي ليميت باي ليميت iyo sell limit data si fiican u sharxin okay buy limit iyo sell limit haddaan ku celiyo buy limit macnaheedu maxaa waaye buy limit for example hadda waxaan dhahaynaa buy stop ka bilaabeynaa stop ka bilaabeyna okay stop suuqa hadda halkaan uu maraayo soo ma dhahaynaa lama suuqa intuu maraayo hadda dhahaynaa suuqa ma gaarin marka halkaan muusa gaarin namarka uusa gaarin namarkan kale kugu soo biiraya oo ah isagana wax ka dhigaya marka jaala ka dhiga okay nambarka suuqa hadda wuxuu marayaa nambarkan hadda ah 146 xumuroya soo ma 146 xumuroya 148 suuqa weli muusa gaarin macnaa intuu 148 suuqa weli muusa gaarin buy stop micnaheeda waxaa kusoo barateen buy stop haddii casharka soo daawateen casharka soo fahanteen micnaheeda waxa waaye suuqa muusa meel uusa gaarin aa kasii gelaysa macnaa waa sii ballansanaysaa si aad usii ballansata marka waxaa qaadan doontaa nambarka suuqaas uu kaa gelin lahaa ama suuqa markuu nambarkaas tago isii raacsii ahayd sidoo kalena isla nambarkaas waxaa ka xisaabin doontaa hoostiisa asaariisa dhiganaysa nambarkaas hadduu suuqa ka tago hadduu soo laabtona waxay igaga saartaa 147 dhahaysa for example waxaa dhahaysaa markaas war suuqa hadda halkaanu maran caada madooda maran meequu maraya 146 marooya okay so lacagtan kore u socota soo ma markay tagto 148 suuqa i geli macnaha suuqa i raacsii hore isi raacsii okay laakiin lambarka 48 markuu tago hadduu soo laabanayana 147 markuu maraa iga saar bes iga jooji khasaaraha $30 khasaaraha wuu soo gaaraya bes meeshada iga xir okay waxa iga saartaa marka nambarka markuu gaaro 151 markuu gaarana suuqaas iga saar sababta $200 faa'iide camal waa taas ma fahanta horta ها استاذ sell عكسيدا سان waa maaho sell limit markii cagsi sell limit cagsi cagsigeeda waay
ha suuq halkaanu marayaa suuq igeli. Okay, sell limit cagsi waa marka suuq halkaanu marayaa dhahaynaa halkaa marku suuqu gaaro macnaha suuq raacsi hore isii raacsi waaye meeshaan iga raacsi halkaa suuq mugta isii raacsi okay mees baa markay ku beeganta isla markay ku beeganta waa 149 ku beeganta 149 suuq markuu maraayo suuqan hoos ugu dar waa hoos ugu dar okay hadduu lacala intuu meesha 149 intuu soo laabtana markuu maraa tusaan 150 markuu maraayo iga bas waa iga jooji khasaarada okay faa'iidana waxay ugu xirtaa 146 taas waa stopki waa limitka maxaa marka limitka waxa waaye aan tirtiro limitka waxa waaye suuq hadda intuu soo socdaa sooma in suuq hadda buy kor usoo socdaa waxaa qiyaastay lacagtan inay qiimo dhac samaynayso markay imaato for example markay imaato 151 markay imaato inay qiimo dhac soo laaban qiyaastay waxaa dhahaysaa niyo aniga kaba gaaray shaqo iyo waxbaa leeyahay lacagtan hadda waxay maraysaa for example kasoo qaad waxay maraysaa markaanay maraysaa oo balaaga ka dhigo waxay maraysaa lacagtaas 149 ay maraysaa 151 lacagtan markay tagto يعني إذا السعودي هوس إلى السعودي وعطني صلاة عرفتها هوس وصعتها هوس إلى السعودي وان هذا الحقيقة مروس أنت مروسة أوكي أمرك ما كتبت لعلك لو عطن كور يا عيد كل شيء اسمه عند فلقية عيد كل شيء اسمه أنا لعطني أول دوت داون سؤال سي وسيسو عن كرتها هذا سيسو عطنا نروح يجرب بتاع نمبر كاس وقتها لا بعمل وقتها لو ما كجارت يجرب حكا دقينا عجاك حكا دقينا جوز حكا دقينا كي بقول كنت لو ما كجارتو boqol konton iyo laba marka gaarto iga reeb lacagtaas faa'iidana waxay ii xisaabisaa halkaas ii xisaabi haddii halkaas gaarto ii xisaabi kee waa kee waa limit waa limitka waa suuq aada gaarin taqaanaa ay ila soo celi suuqaan intuu marahayaa halkaas markuu gaaro hoos ila soo celi waa ila soo celi waa seelkana cagsigeeda waa suuqa hoos u socdaa ila soo celi waa nambarkii waxa qaadan nambarkii waxa qaadanaysa suuqa ka geli lahayd meesha uga bixi lahayd oo khasaaraha kala joojin lahaa iyo waxa qaadan doontaa nambarkii oo faa'iidada ah saddexdaas markay qaadato waxa aadi doonta akoonka aadi doontaa marka laakiin midka suuq automatic la gelaya maxaa waa kaas uma baahna marka in la qaato intriga nambarka intriga sababtoo nambarka saa suuq hadda maraya uma baahna inay qaadato marka hadda uu taagan yahay marka haw taasna waa fahanta si fiican si fiican ustaad. ayaa ogaa tuftaxana Ustaad, hal lacag miyaa la trade garanayaa markasta mise dhowr lacagood oo kale hal mar waa la trade garayn karayaa suuqa macnaha in la sugo waqtigeeda. may lacagu waa badan yihiin ilaa iyo konton way dhaafayaan laakiin insha allah marka aad fansiga gaarto insha allah lacag kontonkaas lacag waa adoo konton dukaan hal mar ka shaqeynaya oo dhaxdo kale waaye waa wareer marka kontonkan insha allah anaga ahaan wax ka isticmaala waxaan dhammayn 15 xabo waxaan dhammayn 10 ma gaara I hope inay 12 xabo tahay 12 xabo aan fiirsanaysaa 12 xabo kaa badan waa saddex lacag bisa kaa badan baa si loo fiirsho laakiin 12 maadaama Soomaali iska noo isku guruf badanahay 12daas waa insha allah waa idin sii doonaa marka Ustaad, su-aal labaad, marka suuqa lagaa saaro lacagtii kugu jirtay intii laga jaray khasaaraha mooyaane wixii kale xagee tegayaan oo xageed ka yaraysaa? meesha kugu jirayaan akoonkaaga kugu jira Haye, fahantay. tusaale ahaan $100 akoon ku shubatay $10 khasaaro dhigatay 10 markii laga jaro 190 akoonka kugu soo harayso waa adoo intaa ABS bank Premium bank intaa $100 dhigato $10 kala baxo kale 90 kale cirka mi aadi waa may Soomaa meesha kugu jiray Soomaa taas waa marka maalin kale haddaan suuqa aadaysaa $10 kala dhiganaysaa oo ka soo qaad way kaa khasaartay 80 kugu soo harayso maalin kale haddaan suuqa gashay $10 kala dhigatay $50 kala faa'iido meeqa faa'iido wadataa waxaa wadataa $80 plus $80 soo $50 lagu daro $100 faa'iido wadataa taas waa suuq marka waa hoos u degay mar waa socone laakiin insha Allah waxaan rajeynaynaa horta suuq khasaare waa leeyahay guys okay cid taas laga qarnaa ma aha okay suuqan khasaare waa leeyahay laakiin maalinka adiga waxaaga yarayso aad dhahdaniyo iyo suuqan $10 la kala halkii saddex jibaar faa'iido $10 faa'iida ma kastoo akoonkaaga weyn yahay ma kastoo adiga faa'iidada badan tahay ma kastoo khasaaraha u badan yahay laakiin akoon ay ku jirto $10 $10 waa anaa naf la ka tari mayso wuu xamili karaa $10 in laga khasaaro okay akoon 10 kun oo dollar ay ku jirto inuu $50 khasaaro wuu xamili karaa macnaha wuu xamili karaa laakiin akoon $1 ku jirto $50 hal mar hadduu khasaaro ma xamili karo waa laga dareemaya akoonka inuu culays ku imaado la dareemaya marka waa sidaas marka hadda lacagtii say u eg tahay
ola ekaanaysaa marka. ay su-aal kale. Okay, marka waxaan sameynaynaa taleefon kale kasoo gela. taleefonkaas marka si akoon loo furto insha allah aan sameynaynaa. Horta intaa akoonka kow u furan waxaa u baahan tahay waxyaala u baahan tahay jiraan. Kow waxaa u baahan tahay horta magacaada oo saddexan. waxaa kaloo u baahan tahay email u baahan tahay. laba waxaa u baahan tahay number u baahan tahay. Number phone number ayaan leedahay kale u baahan tahay. saddexdaas u baahan tahay si mana akoon dheema u furato marka. Laakiin akoonka realka lacag ku shubanaysa passport iyo sharciye iyo waraaqada iyo bank statement iyo wax badan u baahan tahay. maadaama fake yahay wax yar wax iskaga baahanahay. Hadda taleefanka soo galaa marka insha allah taleefanka shada ka share garayna maadaama computerka in lagu isticmaalo ma fiicno macnaha professional ma ah insha allah waa arkayna marka. Marka guys, ma maqashaan soo maaha? ha 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 Okay. Codkii waa soo laabana. Codkii soo laabana. Okay waay. Guys, codkii soo laabana. Okay waay. صح وي استاذ احسن معكم الله وصل اوكي يا استاذ، اوكي باي. Okay. 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 Hadda akoonka waa maqashaan. Adigu waa aragtaa soo maa taleefankii. Yeah guys. Alaf codka ha furto guys. Ila socdo. وانا رميت التليفون على مش حديث Okay. Marka waxaan sameynaa waxaa soo degsanaysaa MT5 soo degsanaysaa. MT5 waa kan MT5 ama MT4 labadaba waa isticmaali kartaa dhima laha. MT5 MT4 akoonka ugu jira
oo koonkay caadiga lacag ku jirto ka aniga akoonada waan ku isticmaali kartaa laakiin xoogaa inaan ku qaldaa diidaa dhowti marka MT5 ka aan isticmaalaynaa marka koowaad aad soo kacday saana kugu soo kacaya ama marka soo deji sidoo kale wax iska caadiyo iska fudud kugu soo kaca kasi akoon u furatay marka laba mid waaye marka koowaad asaa akoon kuu furaaya akoon asaa kuu furaaya marka labaadna inaad u furatid waaye okay hadda waxaan rabnaa akoon anoo aan leenahay inaan furano maadaama asoo akoonka noo furaayo wuxuu ku furaa $100,000 iyo wax ka badan ku furaa $100,000 anaga ma maamuli karno waxaan rabnaa akoon lacag sida bidaya aadana ka qaadana okay waxaa ku dhufan doontaa meesha setting ku dhufan doontaa qaybta setting ku dhufan doontaa then waxaad dhihi doontaa meesha ku dhufan doonto oo new akoon aad dhihi doontaa marka then qofka hadlayn codka hey guys then daaima ka codka xiro codka okay marka waxaan dhahaynaa marka new account aan dhahaynaa then waxaan dhahaynaa meeshaan ugu soo horeyso mt view ama broker kala duwan yihiin hadda broker karta isticmaali kartaa Ibrahim da codka xiro okay marka waa wadaynaa meeshaan ku dhufan doontaa marka ciwaankan oo meesha ku soo baxaya oo ku dhufanaysaa wuxuu ku dhahayaa marka kor maxaa ku qoran demo account ku qoran jira demo account okay maxaa markuu saan yahay anaga muddo leeyahay aqoon darro maalin okay hadda anaa kaa xiray aan soo furan mar dambe insha Allah marka meesha kor ku dhufanaysaa ku qoran tahay demo account ku dhufantaa qoraysa demo account ku dhufatid intaan ku soo baxay okay ku maxaa gelinaysaa magacaaga gelinaysaa aniga mar ii gashan yahay meesha ku qordo magacaaga ku qori doontaa kana last name ka qori doontaa kana ku qordo numberka ku qori doontaa okay meesha ku qordo email ka ku qori doontaa qaybtan waa saanimaan okay qaybtaas maxaa waaye kan waa serverka no problem serverka dhib malaha waxaad iska dooran kartaa ama asaga ku dooraya qaybta lacag ku qoran account type meesha ku qoran ku dhufan doontaa lacagta account credit maxaa waaye ma euro ku rabtaa ama GBP ku rabtaa ama GB ku rabtaa hadda wadanka joogto macna aad dooran doontaa insha Allah idan maadaama lacag aan USD isticmaalin lacag USD aad dooran doonaa meeshan aan u nimaan leverage waxa waaye ada idin sharaxo leverage waxa waaye haddaan dhaho 1 to 1 haddaan dhaho kamicnihi waxa waaye lacagteeda unbaa isticmaala tusaale $100 kugu jirto $100 unbaa isticmaala laakiin broker wax jira waxay ku siiyaan awood macnaha ay dadku ku saacidaan jirto qofku markii uu $100 uu jirto kale wuxuu isticmaali karaa saddex lacagood trade gareyn kara ama afar lacagood trade gareyn kara waxyaalahaas laakiin broker wuxuu ku siiyaan awood aad ku isticmaali kartid awood aad ku isticmaali kartid inaad $100 akoon kugu jiro inaad 5 lacagood trade gareyn kartid inaad 6 lacagood trade gareyn kartid inaad si broker kala yihiin marka nambaraha meesha ku qoraa 1 to 1 doors macnaha waxa isticmaala boqolkayga oo boqolkayga bisa isticmaala haddii 1 to 3 doors macnaha waaye wax yar number wax sintiyaal ugu daray macnaha hadda wax ka trade gareyn tusaale usoo qaadayna maahan sida saxda tusaale usoo qaadana waxa waaye broker kala duwan marka tusaale usoo qaadana waxa waaye 1 to 3 doorto kala waxa waaye wax ka trade gareyn kara afar lacag ka trade gareyn kara 1 to 5 haddaad doorto waa 5 lacag ama 6 camal kala waa marka laakiin meel waxa doorto u fiican u sareysa doorto 1 to 100 la doorto okay kan waxa waa deposit waxa waa lacagta inaad dhigto marka by default maxaa ku samaysan $100 ku samaysan laakiin waa ku dhufan doontaa $100 ku samaysan soo deg marka meesha u yar $300 u yar wax macnaha wax akoon lagu furan $300 u yar $300 waa maamul kartaa waqtiyada lagu furo okay marka $300 aad taabsan doontaa okay kadibna waxaad dhigtaa accept aad dhigi doontaa then registration aad dhigi doontaa automatic wax ku siin doonaa marka passwordkaaga iyo userkaaga waxa ku siin doonaa dhima waxaan waa demo waaye dukaa dhuma xataa mid kala samaysan kartaa marka no problem waxaa dhahnaa start ka dhahnaa start dhan intuu keeni doonaa wuxuu noo keeni doonaa lacaguhu noo keeni doonaa lacagaha meesha qoran kara lacagaha marka waxa u baahan tahay aad ka isticmaalid madaxa kan iska dilay si aad u dilay meeshan qoran tahay qalinka yarka taaban doontaa lacagaha u baahan oo kale aan fiirin hadda dhawqa USD CHF kale uma baahni kana kale USD chain kale uma baahni USD rab oo lacagta ruush rash garantiya macnaheedu sharaxayna uma baahni dhawqa kale tan ugu hooseysa kale uma baahni wax dhawqa kale dalida ku qabanaa okay maxaad iga dhiman meeqa ku saarsan waxa ku soo haray 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 lacagood 6 lacagood ku soo haray Soomaali lacag badan iga maqan si xasuusta euro GB waa kuma jirto GB waa kuma jirto lacag badan iga maqan gold oo kale kuma jiro
marka si aad ugu soo darsato marka meesha ku qoran tahay kore aad ku qoran tahay enter symbol for search aad qoran tahay oo kale aad ku dhufan doontaa lacagta aad rabtid inaad gelisid intaan kusoo baxsan kooda waxa kusoo baxay lacagaha forex ma rabtaa lacagaha minted ka ku dhufan oo kale waa gold iyo silver iyo waxyaalahaas ku jiraan marka indexka waa lacagaha indexkan waa lacagaha wadan nasdaq ku jiraan nasdaq waxa waaye waa lacago badan kambaniyo badan lacago isku tagay lacag wax ma fiicna iska dhaafa okay waxa uu muhiimsan u socda waxa uu muhiimsan laba u sareysa lacagaha forex-ka oo dhan waa lacagaha forex-ka waa kuwa ay tirada batay intaas lacag waa mataa waxaa soo lacag ku jira meesha maaragtay waxaas lacag mugtada gelin karta marka okay marka lacagta rabno marka waa dooran doonaa mentriskan maxaa ku jiro waa gold yaa ku jiro silver aa ku jiro gold oo lacagta oo lagu sarrifayo adig waxyaala badan ku jira waxa ugu muhiimsan marka silver oo qoran tahay iyo waxa ugu muhiimsan gold to USD gold to euro ku jiro wajida gold to Australia labada ugu muhiimsan waa gold USD iyo silver ugu muhiimsan labadaasna ay laftooda value-kooda saa'id ah iska risk waaye waa ka tegeynaa waxa sameynaa marka lacagaha forex u tegeynaa lacagaha forex u tagno marka intaan lacagood waaye lacagta aan rabo sidee u soo dhex saaraa marka waa inaa waqti soo maahan lacagta rabo meesha ku qoraa waxa qoraa sanada qorba GBP GB waa raadada dhawr kaliya soo haray intii kaliya soo haray waxa dhigna calaamadda inta balasta ku qorna balas ku dhigto tomaad meeshii ku gashay ka soo fiirin meeshii gashay in kale tirtiro kan sala iska dhaw waatna u hoos samarta meeshii soo gashay mid kale soo dishaa euro GB waa tirtiro euro GBY maaragta euro GB meesha ku jirta balas soo dhaxad oo dhigto marka kasoo qaado lacag meesha kugu jirtay waxda meesha kugu jirto kor ka soo raadi asdhaha هذا حسور هذينا يورو تي بي واي هذا رقم صدر نصما حسور هذينا يورو تي بي واي ما رحتان امتى يكون صباح سواء إلا هو معناه حنين حاول لعيتها مرة رقم صدر صفي ماشي العيال صدر الله هذا الله أنا مركز مش هينو وش ما رحتان ما عيبت أنا كنت هاي خوسي أو لو أنت لا فاية وحلقة صباح قيبت العيال على صباح واقعي شارتي أو تنام قيبت شارتي هديرتان صور ماشي صارنا شارتي أو أرتان شارتي وحوايا كذا وتجينا واي waa hadda lacagtii qiimo dhacay qiimo kacay lacagta samaysa waay okay sidoo kale number-iskiina waa kuna inta ku qoran ma aragtaan number-iskiina waa kuwa meeshaan ku qoran kiisa ku qoran okay sidoo kale meeshan waxaa kusoo qoran si socono trade ku qoran trade meeshan waxa uu soo bandhigaa marka waa wixii maanta xalan hore ku sheekeynayay haddii aan intaan dadka saxo waa balance ee ku sheekeynayay equity waxa ay equity ahaa lacagtii lacagta kugu balance oo lagu daray lacagta ku socoto ama laga jaray khasaaraha ku socdo okay balance maxaa la balance waa lacag kugu jirta hadda sax ku dooran ma jirto ma okay lacagaha kariira galay ama lacagaha galay soo qaad lacagta maxaa galay balaas ay noqoto ma lagu daray balance ko ma lagu daray marka lacagta istaagto oo target profit ay ku tagto macnaha lagu daray balance inta ka sokaysa wax lagu haynayaa meesha ku qorda equity lagu hayn doonaa equity lagu hayn doonaa sidoo kale khasaaraha hadda khasaaro ku bilowdo khasaaro ku bilowdo equity ka jarmaya balance ka jarmaya balance ko ma ka jarmaya marka lacagtan ay gaarto meeshii khasaaraha uu tala gashay oo balance ka jarmaya inta ka sokaysa equity lagu haynaa free margin maxaa waaye free margin waqtiyada ka soo sheekeeyeen inta position kuu bannaan ama inta ka trade garin kartid iyo sidoo kale meeshii la iska ilaalin lahaa waa margin-ka waa okay qaybta kale hadda sii fiirin maxaa waaye waa history waaye history maxaa waaye lacagii aad gashay lacagii aad ka baxday waxyaalihii aad samaysay meesha lagu soo bandhigi lahaa waa okay qaybta ugu sarreysa maxaa ku qoran marka qaybta ugu sarreysa waxaa ku qoran meel yar gees u fiirsa calaamadda saacadda ay ku qoran tahay ku dhuftoo kale wax ka soo baxaysa marka saan u fiirin waxaa fiirin kartaa maanta bis inaad intaa shaqaysay waa fiirin kartaa bis maanta bis haddaad u fitid waxaa kusoo bixi doonaa intii maanta lacag aad shaqaysaa kusoo bixi doonaa ama intii maanta lacag aad khasaartay haddaa ku celiyo meesha aan ku last week ku dhufan kartaa intii lacag isbuuc aan shaqaysaa kusoo baxayso haddaa kusii dhufto marka last month ku dhufto waxaa waaye intii lacag oo aad faa'iida ama aad khasaartay last week aad kusoo baxayso ama last month aad kusoo baxayso qaybta ku socota waa setting-giga marka setting-giga waxyaala laga bedeshaa maxaa laga bedeshaa hada chartiga kale wax ka bedelayna meesha qorta chartiga kale wax kasoo bedelayna kalarka kasoo bedelayna kale kalarka ku dhufanayna meesha madowda oo kale meesha madowda wax ka dhigaynaa dhaxaynaa niyo wax ka dhigaynaa cagaar ka dhigaynaa kalarkaas ka dhigan kartaa labaas meesha madowda wax cagaar ka dhigaynaa for example meeshan hadda u laabana marka chartiga hadda u laabana chartiga ma aragtaan cagaar noqdo meesha madowda cagaar noqdo meeshan waxa laga bedelaa marka hadda chartiga ku laabanayna sida ku soo celinaa marka ku soo celinaa sideed okay madow ka dhigay sidoo kale meeshan oo cagaar taana wax ka dhigaya madow kale soo ku laabana marka da ku laabto ma aragtaan may sorry soo bedelaa mar okay okay ha meeshan cagaar bulkan taana ka dhigaya
madow marka hadda u laabana marka aragta madow isku bedelay okay meesha settingkeeda marka waxyaaba badan laga bedelaa marka waxaas la sameeyo okay hadda wax soo sheegay Soomaa target profit beep iyo lacag waxa soo sheegay Soomaa sidee lacag loogu trade karaa marka sidee loo qaataa lacag hadda wax soo qiyaasnay USDT waaye lacag aan buy u qaadanaa soo qiyaasnay numberka ka qaadan lahaa wixii yaa soo sheegnay marka aan u tagno marka okay meesha ku laaban doontaa ku qoran tahay labadan federaalku isku dhaafa equity isku qoran tahay ku dhufan doontaa lacagtii ay rabtay marka inta kugu jirta soo maanta USD aad ka trade garanaysaa GB USD ka trade waxaad ka trade garanaysaa aan soo dhahan hadda USD GB waad soo qaadan ma koro USD GB inta minugu jirtaa waa minugu jirta soo ma minugu jirta waa tanaa dhexdan ku jirta waa tanaa inuu nuxsanaysa waa okay USD GB waa riixayna marka ama marka iPhone isticmaalaysa ma riixaysid okay sidoo kale tan waa riixi kartaa waa riixaysaa markaa riixdo kale wax kusoo baxayso kacaysa markaan Samsung sidoo kale xataa waa taabanaysaa ama waa riixaysaa mujida dad tahay ama riixdo ku baxaysa okay hadda riixin wax kale waxaan soo baxay wax soo baxaya intii hada aan soo sharaxay soo baxaysaa inaad tirageysi marka charti inaad fiirisid marka dhigtiiska fara ku saabsan oo kale meelka inaad fiirisid waxyaas waa marka okay hadda waxaa dhahay trade inaad ka trade gaar rabaa dhahay trade dhahaya intaana ku soo baxay intaana marka ku soo baxdo kale maxaa meesha ku qoran stop loss ku qoran take profit ku qoran tan oo kale oo defeat ku qoran oo kale Samsung inta badan ma laha lama isticmaalo iska dhaaf waxaa isticmaalaysaa stop loss iyo target profit markan waa markii aan rabo lacagtan in hadda gala waa marka ay marsan aan ka gala waa okay stop loss inta ku qori doontaa okay marka hadda sana marka noo geliyo okay idan maxaa ku qori doontaa take profit inta ku qori doontaa hadda asaga number noo geliyo laakiin marka kale numberka gashan waa trace numberka gashan kartaa okay numberka gashan okay meesha dhexdan waxaa ku qoran loss size waa meesha guriyada maxaa soo sheegnay 0.0.0 number ahaada soo qabsan soo maahan meesha hadda ma yeelaayo laakiin 0.06 kaas u yeela okay 0.06 kaas soo gashanay soo ma 0.6 meeshaan waaye kadib maxaa dhahaya buy am sell mid daa dhahaya hadda ama buy u socdo sell u socdo u socdo kale buy u socdo soo ma buy baa dhahaya hadda buy taa dhaho kale wuxuu saaraa market iska loos korada fiiriso suuq waa xiran yahay macnaha lacag ma qaadan kari waa damaan awada waxa waaye waa sabti ama xalas u fiiriso okay inta maxaa waaye waa markaa rabtid lacag in hadda gashid waaye waxa u teginaa markaa raba buy limit iyo buy stop ka kala soo baxaya meeshaan kor ay qoran tahay standing execution ay qoran tahay kada ku dhufto wax ka soo baxaya wax kuwana ku dhufto fiida isha heerta soo furo buy limit waa ka sell limit waa buy stop sell stop wax dhan waa kuwa ma arkaan waa kuwa samar afartan u taraysa aka isticmaal buy limit sell limit buy stop sell stop inta u meelis inta kale marka iska dhaaf la hal isticmaal ma ahan inta badan iPhone ku bisale Samsung aad hoob inuu salaxay marka okay buy limit hada dhaho kale hadda wuxuu ku weydiinayaa fiir marka wuxuu ku darsan meesha أول مركي عادي أهيد مركي عادي أهيد بابا اللي بتيجي تقاعد مركي عادي أهيد وكلام حواي هذا واحد صار باي اللي من صار مقطع أوكي واحد قاعد أوكي واحد وصل على عادي أتصفير لنا مركي عادي أتصفير لنا ده أوكي عادي تهاي سوء طالع هذا واحد صار باي اللي من صار مقطع باي اللي من صار تيجي تقاعد مركي أوكي أنا باي اللي من صار أوكي باي اللي من صار واحد كسر كرماي واحد كسر كرداية number ay ku qortaa barays waxa ku qoran barays ku soo qoran meesha hoose waxa isku bedelaysaa blaze meesha buy iyo sell ka isku bedelaysaa blaze isku bedeshay okay blaze isku bedeshay blaze maxaa buy iyo sell ana blaze waxa meesha buy limit maxaa waa buy xataa hoose u socotaa sell u socotaa marka soo laabto ila soo celi macnaha buy ila soo celi waa uftaa buy ila soo celi waa okay hada meesha waxa ku soo qornay barays maxaa waaye lambarka lacagta laga gelin doono markay tagto inta geliya u dhahaya hada taabano markaas noo qabto markaas loo qabto okay stop loss waxa waaye lacagtan lacag hoos u socotaaye adna baa u soo geli doontaaye haday hoos u socoto meeqa lacag gosha inaad qasaartid numberkii aad soo qabsatay sababta dood FRB baa noo soo baxay dood FRB wax ku 0.06 ku galay inta 0.06 ka dhigo stop losskii numberkii ahaa gelina marka take profit yaa u socdana waa gelina saas maxaa waaye saas waxaa marka okay saasna waxaa waaye marka intaan iska xir dhimalaha taas waxa marka hada waxa ku hadda balays hadii doonto balays marka okay suuq wax xiran laakiin marka kale by default caad u qaado insha Allah isku dayna habeenka u soo horeyso inaan marka ashaka soo practical caad la qaadanayno insha Allah inaan sameeyno isku dayna hadda insha Allah hob in ay fahanteen sida broker loo sameeyo insha Allah loo qaato waxaan insha Allah waa wax maalin kasta ka soo horbaxaya qasab aan ku baranayso hadda insha Allah soo hordhac u qaata sidoo kale waxa sameeysan sida idin sheegay mawduuc kasta waxa sameeysan waxa ka sameeysan
baaraso macnaa soo baara baa stop sida loo isticmaala sidii trade loo qaataa waxaad insha allah casharkii bisa ku ekaanay xataa banaanka si fiican oo soo baara leverage maxaa la dhahaa waxaad waa si wax soo baari kartaa waa okay aabtaasna inaad fahanteen insha allah hadda waxaan u gelaynaa marka wixii su'aalaha guys okay okay markaa okay wixii su'aalaha wax su'aalaha ma jiraan بس عشرة واحد عشان ku xogee قادنين تريد فيو عشان ku waxaan ku qaadanaynaa sida loo isticmaalo trading view hadda website-ka dadka loo isticmaalo laakiin waxa samayn doonaa had maadaama double oo suuq xiran uu dhahayo hadda dhahayo suuq xiran uu dhahayo maadaama suuq xiran uu dhahayo waxa sameynaynaa ayagoo waxa sameynaynaa practical ay suuqa furan yahay maadaama xidid lagu soo rarta arbacada leenahay arbacana uu suuqa furan yahay waxa caada u sameynaa lacag socotaa fiirina buy stop iyo sell stop iyo buy caadi wax dhan waa sameynaa insha allah ديما تريد قادنين معناها مرة تصير trade qaadan insha allah trade-na buy limit waa dhiganaynaa buy stop waa dhiganaynaa sell limit waa dhiganaynaa sell buy stop wax dhan waa dhiganaynaa sidoo kale lot size waa gelaynaa lacag caadi ah adiga meesha maraysa gelaynaa saas sameynaa insha allah إن شاء الله insha allah hadda si akoonka sii samaysto qofka akoonka sii samaysto waa sida markaa soo degsatid intii forkunka soo degsatid ama intii forkunka soo degsatid automatically akoona kuu furaa dadka kaaga isticmaali karta oo baahan inaad furtid hadii lacag kugu badan tahayna sida u saas sameynaysa hey guys I hope inay dhan tahay markaan hal casharka insha allah guriga iyo soo dhigi doona ku cishta waa kaasa marka salaam